السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله شرفت الآن إن سلام عيا ما أنتوا حن ربي إن إسكلاش يرشح كيسن هدو إلهي راث نفتي ذبا عايزكو شيقنا السوشيال ميديا ما أنتوا سووا ذكوري أنا قدر أنت جوجنا مرك أنا وماشين جوجنا سيدان ما ركت نقون كرنا دت كفائدة السوشيال ميديا هكو جريديس وأن قسارة كلا كل من أمني جب إيو ما ركتي أو أركين ماشي إني تحي meel xun oo markii social media la sheegaba in la dhihin waa meel xun waa meel kan aan la dhihin marka 7 qodob aan soo diyaariyay 7daas qodob insha Allah nafteyda ugu horeysa inaan hirgelino ku dhaqano Allah ma aragtay nagu duwa dhamaanteen insha Allah qodobka ugu horeeya waxa waaye in uu qofka ogaado dadka uu saaxiibaha leeyahay ama dadku ku xiran yahay ama dadku raaco uu follow gareeyo inuu yaqaano wuxuu u follow gareeyay iyo waxay soo gudbiyaan inuu yaqaano waa haddii aad raacdo dad xumaanta soo gudbiya xumaan unbaa ku imaanayso waxa arkaysid waa un wax xun ba iyo jab iyo hoog iyo wixii ma aragtay jaban iyo wixii dhaca unbaad arkaysaa haddii aad raacday dad wanaagsanna waxaa arkaysaa wax wanaagsan wax quruxsan wax ma aragtay fiican wax niyad rajo ku gelinaya naftaada rajo gelinaya erayo cusub baranaysaa wax ma aragtay wax ku soo kordhaya aad ma aragtay yeelanaysaa waxaa jirta oraah dhahdo qofka inta badan dadku ku xiran yahay oo waqtiga geliyo noloshiisa sidee yihiin uu noqdaa marka adiga su'aal isweydii social media ku wada jirnaa dadaan follow gareynaa dadaan ma aragtay dhageysanaa oon waqti gelinaa inta badan dadkaan aan dhageysanayno haddii ayaga noqon lahayn ilaan sidooda noqonaysiina nalahay somaha haddii aan sidooda noqono maxaa ka dareemaysaa inside-ka maxaa ka dareemaysaa qalbiga yacni ma farxad oo anoo ku faraxsanahay haddaan noqon lahaa dadkaasoo kale dadka aan dhageysto aan raaco inta badan waqtiga aan geliyo inta aan wax ka aqriyo dadkaas haddaan noqon lahaa farxadaan dareemi lahaa maa dhehaysaa mise maxaa dhehaysaa belo kuwa aan raaco oo aan wax ka dhageysto ilaahay sidoo kale igama dhigo waa inkaar kuwa qabo xumaan un bay soo gudbiyaan waa dad ma aragtay dhiban haddii jawaabta kuu soo baxday ayay ku xiran tahay inaad dadka aad waqtiga gelisid inaad sii haysatid iyo inaad ma aragtay ka hartid way ku xiran tahay jawaabta aad ka heshay su'aashii aan ku weydiiyay qodobka labaad waxa waaye qofka inuu daawanin waxyaabaha uu waxba ka qaban karin nasiib darro maanta adduunka isku furan yahay dhibaatada ka dhacda meesha ugu dambeysa adduunka 1 second ay nagu soo gaaraysaa inta la duubay bis ay naga xigtaa way soo gaaraysaa markay soo gaarto adiga qaaradda kala joogta waxba kama qaban kartid qofkina wax siin karna xataa laga yaabaa marka daawashada aad daawanaysid maxay keenaysaa inay ku effect garayso adiga ee dhibaato ku geysato oo aad dhahdid murug aad la noolaatid waxba ka qaban karin maanta inaad ka fikirtid waqti aad gelisid laga yaabo inaad howlo badan oo ku yaalay ay sidii kaaga dayacmaan laga yaabo habeenkaas inay hurdada ka tagto waa un waxba ka qaban karin marka ha daawanin waxyaabaha aad waxba ka qaban karin ha daawanin waxyaabaha aad waxba ka qaban karin waxa wax ka qaban kartid hada daawan kartid oo calool adiga sleeda daawo waxna ka qabo hada waxba ka qaban karin faraha ka qaad ha daawanin u ducee waxa dhahday ilaahu dadka dhibka ka qaad ilaahu ma aragto ummadaada u ducee kor ka ducee waa ka duceen kartaa kor isbar inaa kor ka duceyst waxyaabaha aan waxba ka qaban karin ha daawanin iska isdhaafi video aragtay oo sad ama ma aragtay dhib iyo rafaad iyo dagaalo iyo qof ma aragtay dhiban iyo wax laga sheekeynayo waqtigaas iyada aad joogtid waxba ma ka qaban kartid xal ma u hayso maaha ha daawan faraha ka qaad iskaga tag mid kala raadso qodobka saddexaad waxa waaye dadka social mediaha inta friendska kule Facebook oo kale friends aa lagu yahay Twitter oo kale dada ku follow gareeya yacni neighbor leedahay derisaa leedahay derisku waa inaa ixtiraamtid ixtiraam deriskaaga social media se ku ixtiraamaysaa deriskaaga waxaa ku ixtiraamaysaa
waxaad ka ilaalinaysaa wax kasta oo xumaan ah inaad sheer garis adig ileen sheertan berina markii aan dhimano qiyaamada qiyaamo qof kasta waa la weydiina waxaan waa la iska xisaabinaya dad qaar way iska sheer garayaan buu malayaanba inay ku jirto xisaabtii kale marka xisaabtu way ku jirtaa waxaa sheer garaynaysid waa inay yihiin waxaa og tahay in wax laga faa'iidayo waxaa og tahay in ma aragtay dadka ay wax u dhimeynin marmar waa loo baahan yahay inaan iska qosolno waxyaabo fani iska sheeg waxa faniga naftooda inay limit leeyihiin oo marka aqliga isticmaashidoo dhahdid war waxaan dadkii ma la hortagi karaa inaad dhahdid waa inaad dhihi kartid waxaan dadkii mu sheer gareyn karaa yaa ka xanaaqi kara yaa lagu caynayaa madadaa lagu caynayaa madadaa lagu aflagaadeynaya inaad dhahdid waa marmar waxaa jirta wax ani aan fani u arkaya inuu qof kale u arko in uu afeen gareysaa laga yaaba uu isaga dhibsanayo dhibaato u tahay marka waa inaad dadka xitaa dhihi kartid waxa ani aan sheer gareynaya dadka dariska ahay sidee maaragta u arki karaan ma i dhibsanayaan dadkii maxay dareemayaan marka ani waxaan sheer gareeyo waa inaa wixii aad ka labanlabeyn kartid oo fiirin kartid oo waqti gelin kartid nafteeda sheer gareynta marka dariskii halis ilaaliyo halis xaq dhowro yaan wax walba laysku sheer gareynin wax walba yaan iska sheer gareynin qodobka afraad waxaa waaye ha noqonin qof waqtigiisii dhan social media geliyo saakis uu soo kacay wax kale aan qabanin maaragtay cirbad aan duun gelinin waqtigiisii dhan meeshan geliya ha noqonin dad badan way ka faa'iidaystaan social mediaha waxay ku bartaan skill cusub xirfad cusub ay ku bartaan intaad maaragtay xitaa haddaad waqtigaas haysidba oo aad gelinaysid ha gelinin qof kale inaad daawatid ha gelinin qof kale inaad maaragta oo ama sheekeynayo ama wax ka sheekeynayo inaad dhageysatid ha gelinin waxaa gelisaa qofaa wax ka faa'iidaysid geli qofaa xirfad ka baranayso geli xirfado badanaa jira maanta oo banaanka ah qofkii waqti u hayo oo baran karo gelin kara waqtigaas gelin kara hadda xirfad youtube-kaas intaad ku qortid xirfad heblaayaan raba aad ku qortid wuu kusoo daadinayaa marka adduun saas loo ballaqay oo albaabada u furan yahay meeshaa joogtidba maaragtay waxaa rabtid aad ka baran kartid aad joogtaa marka ha noqonin qof waqtigiisii dhan geliyo qof sheekeynaya ama qof qabyaalad maanta dhan ka sheekeynaya wax kale aan haynin ama maaragtay dad ayagiiba noloshooda aan meel ku ogeyn oo nolol kale ka sheekeynaya ha gelinin waqtigaaga waxa uu khibrad ku raadso khibrado baro skill cusub raadi maxaa cusub youtube-kaas maasha allah youtube-ka waa luqad kala baran kartaa haddaa rabtid hadaa walaa hadaa isku daydid oo kale inaad luqad kala baratid uma baahnid maanta inaad iskuul xitaa u aadid youtube-kaasaa ka baran kartaa marka insha allah naftaada ku dadaal haddii xitaa social mediaha aad ka maarmi karin oo tahay qof dhex joogaya naftaada geli youtube-kaas waxaa sameysaa geyso ka baro wax cusub xirfad cusub ka baro qodobka shanaad waxaa waaye wixii lasoo sheegaba yay maaragtay waxaa badan maanta dad qofaas uu oynaya qofkaasaan la jirnaa kii kala cayneynaa ilaahay iri cadney qofkii kale waxaa loo caynaa maba qofkan ma yani xitaa haddii is yaqaani jireed xitaa ma dhehi dadkana weligood xitaa wax isku darsaday qofkii kale la caynaa marka ha noqonin qofka bil-aadanka ah mahmaha waxaa jirta soomaaliyeed oo dhahdo haddii qof maaragtay daqran uu ka hor imaado garta ha wada siin qofku kasoo tegay inuu dooxan yaho laga yaabaa ama uu mar hore dhintay marka noqo qof xasiloon oo waxa loo sheega filter gareeya horta waxaan maxay yihiin qofkan unbaa ii sheega aniga maxaan ku dari karaa aniga maxaan ka jari karaa maxaa macquul ah maxaan macquul ahayn inaad adi naftaada isweydiisid oo aa u fadhiisatida fiican hadday wax dan kugu jiro yihiin haddii dee riya bahalka qaniinta ee tahayna you need to ina mind your own business dee wax howl ku taala uma aha mugta marka inaad tahay qof maaragtay caadil ah inta badan dee bil-aadan aan nahayo waa dhacdhaceena laakiin haddana waa isxasuusina saan sheegnay isxasuusin marka waa inaad noqotid qof caadil ah oo wixii hal dhinac aan qaadaninoo bal dhinacii kala suga
oo dhaho bal dhinacii kale aan yara sugayaan maxaa laga soo sheegay dhaha oo hadda go-aan degdeg ha u qaadanin go-aan degdegba si degdeg ah go-aan ha u qaadanin weligaa sug dadka maaragtay qofkii kale dhinacii kale ha soo hadlo naan markaas kadib dee go-aan gaar ama haddaa rabti inaad wax ku darsatid ku darso haddaa rabti inaad ka aamustid ka aamus daadseed laakiin go-aan ha qaadanin hal sheeko hal dhinac bis ah aa ka maqashay go-aan ha ka qaadanin waa qodobkeena 5. qodobka 6 waxaa waaye aad ay noogu badan tahay bulshadeena in qofka la dhaliilo waa caadi oo waxqabadkiisa la dhaliilo oo hadduu madax yahay hadduu maaragtay dhaqtar yahay hadduu shaqsi waxaay u yahay in la dhaliilo waa caadi dhaliisha waa okay laakiin waxaa ceeb ah in shaqsiyadiisa hoose loo dhaca ama ehelkiisa la caayo ama qabiilkiisa la caayo ama ilmihiisa loo gudbo ama reerkiisa loo gudbo ama abuurtiisa ilaahay siduu asaga u sameeyey wax laga sheego qofkan asaga ma dooran isuu egyahay ilaahay u dooray markasta oo qof abuurtiisa aad ku caynaysidna waxaa ogaataa inaad question garaynayso ilaahay abuurtiisi aa wax ka sheegaysid marka cabsida ilaahay bal horta ku celisa haddii xitaa xishood iyo ixtiraam iyo wax kale ku reeba ay jirin cabsida ilaahay iyo in lagu xisaabinayo berri maaragtay god 2 mitir in lagu geliyo lagaga soo kala tagaayo ehel waxa ku tareen qabiil waxa ku tareen qaraabo waxa ku tareen intaas ha ku celiso marka qofka wax uu qabtay wax qabadkiisa ku dhaliil for example qof shaqo u dirsatay shaqadiisa dhaliil nin waxaas ama gabar waxaas waa kugu dhaliilsanahay dheh laakiin siduu ilaahay u abuuray iyo ehelkiisa inaa caysid oo u kacdid waa magaal joog xumo waana maaragtay qalad kabiir ah marka taasna qofkii sameeyana ha iska daayo qofkan sameeynin waa ku amaanan yahay qodobka 7 oo aan rabo inaan maaragtay kusoo gabagabeeyaa wuxuu yahay dadka way kala ra'yi duwan yihiin qof walbana ilaahay si uu maaragtay garaadka u siiyey qofka aa kala ra'yi duunaataan macnaheedu ma aha inaad isdagaashan tihiin ama col tihiin ama adiga uu duulaan kuga yahay agree to disagree qofka paradigm wax ka arki karaa adigana paradigm kale wax ka arki kartaa marka waxaa la rabaa qofka inaad dhageysatid oo aad dhihi kartid waa kala ra'yi duwanahay laakiin aniga saanaan qabaa oo adoon caytamin adoon maaragtay qofka ku xadgudbin adoon qofka u xanaaqin aad ra'yigaaga dhiiban kartid ama aad ka hadli kartid dad badan oo annaga naga mid ah ma kala ra'yi duwnaan karaan ama isoo raac ama waa colanka ahay waay ama maaragtay hebel waa isdagaalne maxaa isku dagaashan waa kala ra'yi duwanaa isku dagaalne marka in la kala ra'yi duwanaado waa wax qurux badan adduunkan ilaahay maaragtay si u qurxiyo arag ka waran haddii dadka dhan cadaan laga dhigi lahaa boorina aan lahayd nolosha ka waran haddii nala wada madoobeen lahaa dee macno ma yeelateen wax maaragtay baraf hawada aragtay isku badbedelayso xagaago deer winter snow halka maxaa dhihi jiray spring fall waxaasoo dhan maxaa waaye adduunkay qurxinaysaa inaan kala ra'yi duwanahay inaan maaragtay isku si wax u arkin waa wax qurux badan haddaan hal si wax u arki lahayn fiicanba adduunka ma qurux badnaateen marka nafteyda iyo naftiinaba waxaan kula dardaarmaya cabsida ilaahay horta ilaahay maaragta kuwa ilaahay ka cabsada allah naga dhigo oo waxay sameynayaan ayagoo maaragtay ilaahay dartiis xumaantan ugu tagaaya wanaagana ilaahay dartiis u sameynaya allah naga dhigo kuwa qaladada ka dhaca ka toobad keena allah naga dhiga kuwa ilaahay ka cabsada allah naga dhigo ilaahay maaragtay kulligeen hana hanuuniyo marka aniga nafteyda iyo naftiinaba walaalahayga sharafta waxaan isleeyahay intaas ee maaragtay noo joogaysa hadduu ilaahay yiraahdo waa ismaqal dabo xiiso leh ee mar kale isku soo noqono hadduu ilaahay awoodda la ogolaado assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh